Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee dowladda hoose ee Xamar. Weerarka ayaa waxa uu ku bilowday qarax kaas oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar oo ku taala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Jugta qaraxa ayaa inta badan laga maqlay xaafadaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qaraxa koowaad oo ka dhacay bannaanka hore ee xarunta ayaa dable hubeysan oo ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo gudaha u galay xarunta gobolka Banaadir ayaa ka dhex dagaalamaya iyaga oo halkaasi ka fuliyay qarax kale oo geystay khasaare aan weli la shaacin. Qaar ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo ku sugnaa xarunta ayaa laga soo badbaadiyay iyada oo dadka la soo badbaadiyay ay ku jiraan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo iyo qaar ka mid ah howlwadeenada gobolka. Dadka la xaqiijiyay in ay ku dhaawacmeen weerarka ayaa waxaa ka mid ah taliyaha booliiska degmada Xamarweyne Najib Carab oo soo gaaray dhaawac fudud. Ciidanka dowladda oo goobta gaaray ayaa wada dadaalo lagu soo badbaadinayo dadka ku jira gudaha xarunta. Weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka ay mas'uuliyadiisu sheegatay khawaarijtu. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli guud ahaan gobollada qaar uu ka socdo dagaal ka dhan ah khawaarijta Al-Shabaab.